kala baro kiimikada loo isticmaalo beeraha. Videogan waxaan uga hadlaynaa nooca loo yaqaano herbicide. Maxay tahay, noocyada ay u kala baxdo iyo saameynta ay ku yeelato wax soo saarka beeraha ayaan ka hadlaynaa. kusoo dhawaada video kale oo idin soo gudbinayso Farm Soomaaliya. magacayga waa Cali. usbuuc kasta waxaan idin soo gudbinaa videos aan uga hadlayno beeraha Soomaaliya sidii kor loogu qaadi lahaa. fadlan subscribe, beelkana taabo si aysan waxba ku dhaafin, una gudbi Soomaalida kale si ay uga faa'iideystaan oo wax soo saarka waddanka kor loogu qaado insha Allah. noocyo badan oo kiimika ah ayaa jira oo cudurrada lagu xakameeyo, laakiin videogan waxaan uga sheekaynaynaa nooca loo yaqaano herbicide oo keliya. qof jecel inuu dadka ku baraarujiyo in kiimika la isticmaalo ma ahi, laakiin sii daawo waan ku tusaynaa muhiimadda ay ugu jirto beeraha adduunka. waa maxay herbicide ama geed dile? waa kiimika kasta oo loo isticmaalo in lagu dilo geedaha aan la rabin. herbicide-ku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagula dagaalamo geedaha weedska loo yaqaano ee ka soo baxa beerta oo aan la rabin, si ay u yarayso khasaare dhaqaale oo ka yimaada wax soo saarkii beerta. boqolkiiba 48 daawooyinka la isticmaalo meel kasta oo adduunka ka mid ah oo beeraha loo isticmaalo ama kiimikada loo isticmaalo beeraha, boqolkiiba 48 waa herbicide nooca geed dilaha loo yaqaan. taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay ugu jirto beeralayda iyo wax soo saarka beeraha. ka waran bariiska saas biyaha u dhex fadhiyaan, haddii yaambo inta lagu dhiibo lagu yiraahdo geedaha aan la rabin ka soo aruuri, dhibka laga marayo. kana waa bariiska Afrika. laakiin la dagaalanka weedska lala dagaalamo ama kiimika isticmaal ama gacan isticmaal mar kasta hawl sahlan ma ahan, waa hawl dhib badan. laakiin gacan haddaa isticmaashid waxay kaa rabtaa waqti badan, energy badan iyo qarash badan. meelo badan oo Afrika ka mid ah, dumarka iyo carruurta oo iskuulkii dhaafay ayaa weedska ka jara beerta dhexdooda. taasna jiilka dambe ayay saameyn u keenaysaa. labadan video haddii aadan fiirsan, fadlan fiirso, waxay la xiriiraan videogan hadda aan duubayno. mid waxaan kugu kala baraynaa cudurrada kala duwan ee ku dhaca beerta oo ay ku jiraan weedska iyo sida looga hortago, ayadana waa uga sheekaynay. videoga labaadna siyaabaha cudurrada beeraha loo xakameeyo ayaan uga hadlaynaa. oo weedska wuxuu ka mid yahay uu ka caawinayaa inaad xakamayso cudurradii beeraha oo faafiyey. cudurro waxaa jira oo weedska kusoo hoos dhunta oo beertaadii wax gaarsiinaya. inkastoo adduunka inta badan herbicide la isticmaalo si loola dagaalamo weedska, siyaabo kale oo badan ayaa jira oo loola dagaalamo weedska oo mechanical ah ama dab ah, iyo sida dad badan oo Soomaaliya ay yaqaaniin in gacan la isticmaalo. qaar ka mid ah siyaabahaas la isticmaalo ayaa videoga kaaga muuqda. horta intaanan u gelin videoga, waxaan rabaa inaan sheego taxadar iyo digniin. dad badan si sax ah uma isticmaalaan markay isticmaalayaan kiimikada beeraha oo ay ku buufinayaan, ama si fiican ayaysan u akhrin wax ku qoran waraaqda la socota daawada, ama qalabkii loogu talagalay si ay sunta isaga ilaaliyaan ayaysan samayn. marka waa muhiim waaye in maaragtay qofku uu xirto qalabkii loogu talagalay, sidii loogu talagalay oo waraaqda ku qoraydna uu isticmaalo. haddii aad diiddo sidii loogu talagalay inaad u isticmaasho, lacag kaliya kaama khasaarin. taxadar waxaan kuu leeyahay in daawooyin badan ama kiimikooyin badan oo beeraha loo isticmaalo, qaar waa bug fake weeye, shaqadii loogu talagalana ma qabtaan. qaarna si qaldan ayaa magaca loogu soo qoray ama wax loogu soo qoray, oo xitaa qaar waxaa jira haddii aad isticmaasho weliba adoon haysan dharka isku difaaci lahayd, kansar ku rida dadka. tusaale ahaan, herbicides waxaa jira adduunyada laga mamnuucay, China-na aysan u ogolayn waddankiisa dhexdooda in lagu isticmaalo, laakiin intaas oo sano ay soo saarayeen inay ka iibiyaan Afrika iyo wadamo badan oo adduunyada ka mid ah. inkastoo hadda daawo Paraquat la yiraahdo oo China ay soo saarto oo adduunyadii kale mar hore laga joojiyey, ay yiraahdeen September 2020 wixii ka dambeeya waa joojinaynaa. si kastaba ha ahaatee, xakamayn ku filan herbicide-ku waxay ku sii karaan markii aad isticmaashid waqtigii saxda ahaa oo loogu talagalay. sidoo kale, geedaha way la qabsanayaan haddii hal nuuc oo herbicide ah lagu celceliyo. marka herbicide-yadu waa kala duwan yihiin, noocyo kala duwan insha Allah waa ka sheekaynaynaa, laakiin
waa inaan lagu celcelin. haddii lagu celceliyo halkaas nooc waxay keenayaan inay geedihii la qabsadaan oo markaas kabacdi sidaa rabta ugu buufi aysan waxba ka qaadi karin. noocyada herbicide-ka way badan yihiin, inta kuma soo koobi karo, laakiin meelaha ugu muhiimsan ayaan ka sheegayaa. waxaana loo kala saaraa dhowr siyaabood oo ku salaysan sida loo isticmaalo. nooc waxaa jira la yidhahdo pre-emergent oo intii weedkii aad la dagaalami lahayd ama geedkaagii uusan soo bixin aad beerta ku buufiso. noocna waxaa la yidhahdaa post emergent oo markii geedkaagii ama weedkii uu soo baxo aad u jeedo kabacdi ayaad buufinaysaa. noocaas ayaa ugu badan adduunka la isticmaalaa. waxaa kaloo jira nooc la yidhahdo selective oo aad kula dagaalamaysid kaba soo qaadba geedaha cawska camal ah keliya oo aadan kula dagaalamayn geedaha broadleafka loo yaqaano. iyo nooc waxaa jira la yidhahdo non selective oo aan waxba kala soocayn geedaha dhan baabi'inaya. waxaa ka mid a nooca loo yaqaano glyphosate. galeydoo kale kasoo qaad iyo qamadiga waa cawskay ka tirsan yihiin. marka haddii aad rabto geedaha broadleafka inaad disho, galey iyo ay ku baxayso qamadiyoo kale, daawooyin loogu talagalay ayaa jira oo un dilaya keliya broadleafkii laakiin aan dilayn geedihii cawska ahaa. marka selectiveka waxaa loo isticmaalaa geedkaagii markii uu baxayo oo aad rabtid geedaha weedska keliya inaad iska dishid geedkaagina meesha ku haro. noocaas markaas ayaa la isticmaalaa selective. non selectivena waxaa la isticmaalaa markii aad wax alaali wixii meesha ka baxaya aad rabtid inaad baabi'isid. noocan waa grass weeds, noocaana waa broadleaves noocyada loo yaqaan. waqtiga herbicide-ka la isticmaalo sidaan hore usoo taabanay, waqtiyo la isticmaalo ayaa jira sida pre-emergent intuusan geedkii iyo weedkii uusan soo bixin, iyo post emergent markii geedkii ama weedkii uu soo baxay wixii ka dambeeya. labadaas waqti ayay kala leeyihiin. marka pre-emergentigu waa intii uusan geedkiiba soo bixin ama weedkii uusan soo bixin ayaad buufinaysaa beertaadii. post emergentina waa geedkaagii ama weedkaagii markuu soo baxay kadib ayaad isticmaalaysaa. herbicide-ka wuxuu leeyahay mode of action oo kala duwan, laakiin sida caadiga ah 5 qaybood waa inuu maraa si uu weedkii kaaga dilo. horta marka koowaad waa inuu geedkii caleentiisii uu taabtaa, haddana geedkii waa inuu galaa gudihiisa. midda saddexaad waa inay suntii ay socotaa oo ay gaartaa meeshii geedka loogu talagalay inay ka disho. midda afraadna waa inay leedahay sun ku filan oo ay geedka ku disho. aakhirkiina waa inay gaartaa inay geedkii disho. marka inaad aqoon u leedahay oo aad fahansan tahay mode of actionka ama qaabka ay u shaqeyso herbicide-ka aad soo gadanaysid waa muhiim. ma post emergency aa rabtaa mise waxaa rabtaa marka in aqoon u leedahay kugu filan oo sida herbicide-ka u shaqeyso waa muhiim. taas waxay kuu sahlaysaa inaad doorato herbicide-kii saxda ahaa oo geedka adiga kuu baxaya ama dalagii adiga kuu baxaya loogu talagalay. markaasna aad aqoonsato dhaawaca ay u keentay geedka. taas marka haddii aad aqoontaas u leedahay oo aad baarto waxay kuu sahlaysaa inaad degsato istiraatiijiyad aad ku maamuli lahayd dalaggaa kuu baxaya si aad ula dagaalanto weedska. sawirka waxaa kaaga muuqata 3 treatment oo jaamacad ay baaritaan ku samaysay oo lagu fiirinayay pre-emergency herbicide-ka la isticmaalay intuusan geedkii iyo weedkii soo bixin ka hor la isticmaalay. saamaynta ay ku yeelanayso galey ayaa la sameynayay. sawirka kow oo bidixda kaaga muuqda isaga lama isticmaalin wax herbicide ah. waxaa kuu muuqata markaas galeydii inay yar tahay, koritaankeedii inuu liito, hadda mirana ma soo saarayso, ciriiriyaa la geliyey, energy-gii o dhan laga qaatay. saas ayaa ku dhacday. sawirka labaad magaceeda hadda inaan sheega muhiim ma ahan, laakiin herbicide ay isticmaaleen. herbicide-kaas ma wada baabi'in laakiin intii badneed way baabi'is. marka wax soo saarka waa ka fiican yahay 1. laakiin midka saddexaad waxaa ujeedaa inay beertii nadiif tahay oo galeydii xoog u baxday. marka saddexdaas markaad isku barbar dhigtid hadhow isku heer miro ah ma soo saarayaan. marka taas ayay ku tusinaysaa geed kasta oo weed ah oo beertaada ka baxayo waxaa jirta herbicide asaga loogu talagalay oo uu nugul yahay. mid aan loogu talagelin haddaad u isticmaasho waxba kama qaadayso. kaba soo qaadba mid loogu talagalay cawska geedaha ah haddaad u isticmaasho broadleaves geeda ah waxba dhexa kama qaadayso. inta waxaan kaa tusaynaa badanaa sida ay og tahay Africa ama Soomaaliya inta badan sida weedska loola dagaalamo. inta badan ayaa irdad isticmaalaa way jiraan. wax soo saarka dalagga halkii hektar ee sub-Sahara Africa waa mid aad uga hooseeya adduunyada inteeda kale. saddexdan ayaana la hartay badanaa Africa. waa inaysan markay wax abuurayaan
qaabka adduunyada loo isticmaalo badanaa inaysan isticmaalin. waa inay dhib ku tahay inay la dagaalamaan weedskii iyo inaysan nafaqada sidii loogu talagalay aysan u isticmaalin xilligii saxda ahaa. intaasoo dhanba xilligii saxda ugu habboonaa iyo qiyaastii ugu habbooneed inaysan u isticmaalin. dhibaatada ugu weyn u keentana waa taas. dhaqaale ahaan weedsku waa ka dhib badan yahay cayayaanka iyo fangaska ku dhaca dalagyada. wax badan ayuu ka badan yahay dhibaatada uu keenayo. sababtoo waxaa soo aragtay galeydii markii weedsku dhinac kasta uu ka soo baxo in wax soo saarku uu aad u hooseeyo. aniga waxaan aaminsanahay ilaa inta weedska la xakamaynayo oo la hagaajinayo beeraleyda Soomaaliya inaysan ka soo saari karin dalag fiican oo waddanka ku filan ilaa kaarta loo helo weedskaas la isaga xakameeyo. aan ku tuso sababta aan u iri. horta baaritaamo badan oo kale lagu sameeyay waxaa la yiri halkii hektar oo beeraha Afrika ku yaala sub-Sahara Afrika ku yaala 100 ilaa 300 milyan oo weeds mirihiis ah ayaa ku jira halkii hektar kaliya. wax yar oo kamid ah ayaa sanad kasta banaanka u soo baxa, inta kale gudaha ku jiraan. marka taas waxay ku tusinaysaa in aad ku qasban tahay saacado badan inaad geliso. nambarada meesha ku qoran nambarada aan iskala soo booday maahan, waa nambaro oo baaritaan badan lagu soo sameeyay. baaritaamadaas marka qaar kamid ah waxay sheegeen in 200 oo saacadood ay ku baxdo halkii hektar oo beeraha sub-Sahara Afrika in weedska kaliya laga jaro. marka adiga u qaybi 20 hektar ama 50 hektar ninkii haysto rabo inuu wax ka soo saaro ama galley ama bariis ama qamadi rabo inuu ka soo saaro 200 oo saacadood markaad hektarkii ku dhufato imisa maalin ayay noqonaysaa iyo imisa qarasha iyo imisa mushaar ayuu qofkaasi bixinaya. waxaa kaloo kuu sii dheer in mararka qaar 100% wixii la soo saari lahaa inay meeshaas ku baaba'aan, 20%, 30%, 50% khasaara inay keenaan oo wixii qofku uu soo saari lahaa ay hoos u dhigayso. marka taasi waxay keenaysaa 500 oo hektar nin haysta in 500 oo hektar laba qof ay ka shaqeyso markii machinery haystaan oo hal mar ay saa u buufiyaan. adigii marka intaas oo saacadood ayaad ku bixisay. qiimo ahaan waa adag tahay inaad kula tartanto qofkii machinerygaas isticmaalay oo kiimikadaas isticmaalay. ganacsatadaadii oo waddanka joogtay markaa waxay ku qasban yihiin inay soo iibsadaan raashinkaas raqiiska ah. galley oo intaasoo saacadood la geliyey lacagtooda ma bixi karaan. marka hataa haddaad ahayn dadka jecel inaad kiimikada isticmaashid waxay ku tusinaysaa inaadan tartami karin inaad sida dadku wax u samaynayaan inaad wax u samayso moogiye. waxaan rajaynayaa warbixintaas soo gudbinay inay idin anfacday. fadlan la share gareeya, la wadaaga Soomaalida kale, fikradihiinana nagu soo biiriya, taladiinana nagu soo dara si aan wax soo saarka waddankeena aan u hagaajino oo dadkeena isku filaasho u gaaraan. waa mahadsantiin.